السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Guurka degdega ah ee misana sida yar isku bedela furinka degdega ah saameynta uu ku leeyahay sabannadan dambe ama xilliyada dambe bulshada deegaan ahaan deegaamada Soomaalida iyo dhulka Soomaalidu degto. Sabannadan dambe iyo waqtiyadan dambe waxaad moodaa waxyaabo badan oo guur ka mid yahay inay ganacsi noqdeen. Marka loo eego furinka degdega ah iyo xiriirada muddooyinka u dambeeyay u muuqda ganacsiga uu guurka ka yahay. Maanta mawduuceenan oo mowduuc aad moodo si uu ballaaran mug iyo miisaan leh haddana aan doonayno kolley inayn halkan kusoo wada koobi karin. Waxaa ka mid ah inaan dul istaagno Allaha awoodda weyn leh inoo saamaxo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Guurka imika iyo guurkii waqtiyadii hore kulley farqi weyn oo aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Dabcan imika waxaad moodaa xiriirada guurka iyo xiriirada jacaylka ama inay u badan yihiin xag isfahan waa xagga dhalinyarada qaarkoodna isfahan darro baa lagu tilmaami karnee ay indhabeelnimo ama indha iska tuur lacag iyo hanti dabada ka eriyso ay yihiin u badan yihiin. Horta marka ugu horeysa labada qof markay xiriir sameynayaan badi wax badan baa ka dhex baxa. Waxaad moodaa dadka xiriirada sameynaya inay wax badan ay hilmaamayaan ama wax badan barashada marka laga yimaado labada qof iyadoo laba qofba ay si gaara ay isu bartaan kadis ha ahaato ama si kama ha ahaatee. Haddana waxaad moodaa in wax badan ay ka dhex baxeen barashadii labada qof. Aad moodo inay dhanuun ay ka raran tahay marka loo eego labadii qof ama dhalinyaro ha ahaadaan ama sidii doonaanba ha ahaadaan dhalinyaro imika sabannadan dambe u badan yihiin guurka burburka guurkiya. Iyadoo ay si aad moodo inay u degdegayaan oo taana ay ka dambeyso labada qof dabeecado u qarsoon. Dabeecaddu markeeda hore waa dabeecad guud iyo dabeecad gaar ah. Waxaad moodaa in dabeecaddii gaarka ahayd la ilaawo dabeecaddii guud inta la isbarto kabacdi guur la isu soo bandhiganayo uu guurkiiba noqday wax iska wantuutiraya sida baaska kubadda ah markiiba la isu dhiibayo dabeetana goolkii la dhalinayo guur iyo guri loo dhaqaaqayo. Qofka bini'aadamka markiisa hore wuxuu leeyahay laba dabeecadood mid gaar iyo mid guud. Taa gaarka ah qofka adigoon aqoon baad dushaas ka baran kartaa laakiin ta guud qof muddo badan la noolaa amaba aan dhahee qof attentionkiisu aad u sareeyo iyo dareenkiisu unbaa ogaan kara taa gaarka ah. Marka laga soo gudbo dabeecadda gaarka ah ee barashadii labada qof isu galaan xidhiidh iyo kaalmo kalgacal la galo xiisihii tarmo muddo iyadoon laga tashan ama laga baaran degin ayaa midkoodba midka kale su'aal weydiinaya ma isguursanaayaha isla markiiba guur baa loo dhaqaaqayaa. Kadib marka guri la wada tago wax badan baa soo baxaya. Dabcan qofkii dee guri kalaad kula noolayd guri kale waqti baad noolaydeen kala dee wax badan baa idii kala qorsoonaa gurigii inaad joogtay isna gurigiisuu joogay. Dabcan run iyo been dee wax badan baa meesha ka maqnaa. Xiise beena iyo damac beena dooq beena farxad beena iyo kalsooni beena la isu jiray. Labada qof kolley marka Ilaahay sheegay inna jacalnaakum baynakum mawaddatan wa raxma markay dee meel ku wada nool yihiin meel wax ku wada cunayaan hal meelna wada jibsanayaan waa marka xaaladda dhabta ah labada qof aanay waxba u kala qorsoonayn
wax badan baa soo baxaya oo qarsoonaa. isla markiiba erayada la isdhaafsanaya waxay noqonayaan heblaayey hebelow dabeecadda maad lahaan jirin. wuu lahaan jiray laakiin adagaan waqti siin. iyaduna way lahaan jirtay laakiin haddaan waqti siin si aad dabeecadaheedii ama wixii u qarsoonaa qofka ugu ogaato. xilliyada qofka la yidhaaho dabcan in badan waxaad maqasheen waqtigaa qofka bedela. waqtiguma bedelo laakiin qofka dabeecadihii si u qarsoonaa ayuu soo saaraa. waqtiga adag ama waqtigu qofkaasu yani murugadu soo food saarto ama cadhadu soo food saarto ama xanuun uu ku yimaado iyo waqtiyo kala gedisan, dabcan wax badan oo u qarsoonaa ayaa dabeecadihii soo kashifma, waqtigu soo kashifaa. kabacdi qofkii dabeecado aanu lahaan jirin, kulayl aanu lahaan jirin ama jileec aanu lahaan jirin, qofka adagaad u taqaanay ama qofka karsidaada u taqaanay jilicsanaan iyo qof aan awood lahayn buu soo baxaya. qofka miskiinka u taqaanay dabeecada aanu lahayn ayuu la soo baxaya. waqtiguu soo saaraya, uu kashifaya. uu lahaa dabeecadahan laakiin xilli bay dabeecadan u soo baxaan. badi waxaa jira xilli roobaadka barwaaqada imise bahal baad maqashaa soo baxa. xilli roobaadka bahalada shiriqaalaha la yidhaaho raha, dabcan wax walba xilli bay leeyihiin. dabeecaduna waa sidaas oo kale ah, xilli bay leeyihiin. intaanu ka gudubno horta taasaa u sababa badi guurka dambe ee burburka iyo xidhiidhada sida yar u burburaya. marka laga yimaado horta taaliftigeeda waalidoodu qayb bay ka noqdaan, waayo markaad eegto guurkii hore, dabcan waqtiyadii hore guurku wuxuu lahaa milge iyo sharaf iyo maamuus. waqtigaa iyadoo dadku haddana reer guura ahaa oo casrigaana la odhan jiray casru jaahiliya ahayd, laakiin wax badan baa dadku xeerin jireen. wax badan baa iminka shawaaricda iyo oo iminka aad ku arkayso waddooyinka dumar ama rag yacni dumarkoodii furooyinkoodii ka sheekaynaya ama maxkamadaha aad tagto ama aad maalin walba maqlayso heblaaya la furay ama hebel baa gabadhiisii furay. wax aan la maqli jirin bay ahaayeen oo ceeb bay ku ahayd ragga laftigooda iyo dumarba. inantii reer hebel waa la furay ama inankii reer hebel inantiiba furay. waqtigaa dadku horta qabyaalad bay ku dirsanaayeen. qabyaaladda laftigeeda mar bay ahayd hub yacni qarsoon oo lagu dhunto ama yacni difaac ceebaha asturta. waqtigu iyadoo uu iska adkaa haddana uu ahaa waqti dagaalo iyo jaahilnimo lagu jiray, haddana waxayd waqti laga cabsado godaliilo. inanta reer hebel haddii lasoo furo yacni maxaa lagu soo furay, wixii lagu soo furaa qabtaa. inankoo kalaa waxaa la odhan jiray naga daaya, inankaas waa inantii reer hebel buu xumeeyey ama inantii noocaas. iyadoo haddana xaaladuhu sidaa ahaayeen, inanta marka la guurinayo habaryaraheed iyo hooyadeed iyo ayeeyooyinkeed baa guubaabin jiray. waxaa laga dhadhicin jiray waxaanu inay yihiin wax milge iyo maamuus leh. waxaa loo tusi jiray qofka waxaan culayska intaa leeg mas-uuliyaddu qaadayo. inankana la mid awowayaashii iyo aabihii iyo adeeradii iyo walaaladii baa garab istaagi jiray. saasoo kalaaba islaan loo waanin jiray. waqti waxay ahayd dadku haddana iyadoo had iyo jeer ama inan la yaal inanku dee reerku inanta ka qaba isagoo la yaala ama la kala fog yahay bay xaaladaha mararka qaar la iska soo warheli jiray oo soddonka iyo soddohda iyo walaalka iyo walaashuba ay reerka ka soo warheli jireen. haddana yacni dadku ahaayeen dad isku tiirsan oo wax soo noqod isfahan waa iyo wax noocaasa aanay dhex ool. xaaladahan dambe haddii aynu iyagana kusoo noqonno guurka, marka labada qof laysu guuriyo, labadii qof ee dhallinyarada ahaa da-day doonaanba ha lahaadan waqtiga dhallinyaranimo,
waxaad moodaa in waalidadu kaalintoodii ay gabeen oo inantii had iyo jeer iyadoo aan garanay miligii guurku lahaa in la iska guuriyo inankii oo kalaa siduu reerkiisa u dhaqi lahaa iyo miligihii guurkaba isagoo aan garanayn in la guuriyo kabacdi iyadoo xaaladdu haddana sidaa tahay aan laga soo warhelin maalmaha u horeeya in lugta lagu soo badiyo inta reerkaasi cusub yihiin bila kabacdi markay ka baxaan shahrul casalkii aan laga soo wardoonin. horta xiriirka waalidka iyo qayb buu ka noqdaa marka horeba guurka. dabcan waalidku hadduu kaalintiisii kasoo bixi waayo ama kaalintii waalidnimo ay meesha ka baxdo, kaalintii guurka ama kaalintii milgaha iyo maamuuska iyo cisiwa arrimaha bulshada dhan walba ha noqotee meesha way ka baxdaa. oo iminka si markaad u eegto badi dhalinyarada iminka simankan dambe waliba deegaan ahaan Soomaalida dhulka Soomaalidu degto xidhiidhada waalidka dhalinyarada aad bay ugu yaryihiin. waxyaabaha aadka u badan ee tahriibta keena ayay ka mid tahay ama keena la tagga waxyaabaha dhulka Soomaalida ka caadiga ah in inanta lala tago inanku la tago ama waxyaabo noocaasa. dabcan marka aan waalidku qofka iyo waalidkii aanay lahayn xidhiidh inaanu qofkii waalidkii wax badan usoo bandhigo ayaa meesha ka baxaysa. haddii xaalada adag ku yimaadaan, haddii deyn magaalada laga yeesho, haddii lacag ugu baahdo magaalada bushaaro dareemo, haddii yacni kiis adag uu galo magaalada gudaheeda ama xag dhalinyarnimo xaaladdu ku adkaato, inaanu waalidkii wuxuu soo bandhigan oo tahriib ka jeclaysto ama uu xagga guurkaba dee inankii dee uu ku degdego isagoo waalidkii la tashan ama waalidkii ka baqay in qofka uu doonayo in loo diido inuu dee inan reer dhalay oo lagu soo tabcay si yaro fudud ku damco dabeetana la tagaba. arrintaas horta waa arrin aad inagu badan Soomaali ahaan. Soomaalida qurbuhu qaarkood waxaad moodaa inay arrimahaas kolley xal u heleen oo meel iska saareen, laakiin waa arrin boqolkiiba 75 Soomaalida aad ugu badan siiba inta qolqol joogta ah ee dalkii iyo dalka gudihiisaba joogta. runtii waana xaalado adag oo hawshooduna badan tahay. dabcan dunida waxaan xal lahayn ma jiraan. waa dhib kolley aynu inagu gacanteena ku kasbanay Soomaali ahaan. dhalinyaro ahaanna kolley dee dabcan dee dhalinyarada horta cabsida haysata badi waxay u badan yihiin waxaana waalidkood ka arag badi horta kulama dhaqmaan. kolley dee laga wanaagsan inaan waalidadeen eed u soo jeedino iyagoo aynu ognahay xaqooda iyo halka ay naga taagan yihiin iyo abaalkooda wax lagu guday iyo waxaynu ku gudno oo durida guudkeeda saaran aanay jirin ama aynu la meel dhignaa. haddana waa arrin u baahan in la isbaraarujiyo oo u baahan in meel lagu soo wada jeesto waxyaabaha xiriirka qoyska, hadday tahay arrimo guur iyo haddii ay tahay arrimo qoys oo guud iyo arrimo gaar ahaaneed dhan walba. marka meel loogu soo wada jeesto ama xal loo helana dabcan dhibaatooyin fara badan oo qoyska bil kasta ama maalin kastaba kusoo noqda dabcan meesha ka dhex baxayso oo runtii wax badan xalkooda iyo dawadoodaba la helayo. kolley dabcan dunida waxaan dhammaad iyo bilowba lahayn ma jiraan, waayo dunida dhanbaa leh bilow iyo dhammaad oo maalina la taagay maalina la laabaya.